بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فردقا واكي سقالات كمدة من براهين نمو آيات الرسالة وقلب جمعاء إن شاء الله تعالى دعيسان ليدين بلغية وساعة الإجابات قاضي ساني وركان صوق قابين إن شاء الله وحين نكبر الله بين حديثك أفرطانية الضباط كسابسا نبقى معجزات كيسي عليه الصلاة والسلام xadiidkaasi wuxuu ku saabsan yahay qisadii iyo asaaskii mimbarka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku khudbayn jiray axaadiis dhowraa ku timi min xadiidi jaabir wa ibni cumar wa anas wa abi hurayra iyo sahl ibnu sacd asaacidi jamaaca min asaxaaba wariyay xadiidka marka hadda waxaan rabo waxaa weeye xadiidka anas baynu soo qaadanaynaa saxaabiga wuxuu ka sheekeeyey iyo ragga la midka asxaabtiisa ee walaalihii ee muslimiinta ee saxaabada ah qaabkii nabigu calayhi salaatu wasalaam mimbarkiisa uu asaasay waagi hore nabigu calayhi salaatu wasalaam ma lahayn masaajidkiisu mimbar ma lahay mimbarka idinkaad kortaan ku khudbaysaan ma lahay dhulkaasuu nabigu istaagi jiray geed gudban oo tiir ana nabigu ku tiirsan jiray markuu daaloo kale gacantuu saari jiray ama uu cuskan jiray halkaa tiirba soo gudban baa jiray diirka asaga amooyeen mimbar kale oo nabigu korama jirin dadkii muslimiinta markay bateen ee masjidka la soo buuxshay ayay saxaabadu waxay dareemeen in nabigu hadalkiisii dadka qaarkood uu si fiican u gaadhayn ama saxaabada qaarkood ee gadaal ka yimid nabiga aysan arkaynin maadaama dadku iyo bulshada muslimiinta marka ay bateen fikrad bay marka soo jeediyeen saxaabadu ay nabi allow dadka way bateene mimbar ma lagu sameeyo mimbaraad korto oo dushiisa aad ka khudbayso ummaddu si fiican ku arkaan aduguna dhawaaqaad iyo codkaadu uu bulshada wada gaadho ka waran nabigu hawsha uu soo dhoweeyey kadibna gabadh ansaareed nin najaaro ilaahayadoo marka fuunday ama injineer ah oo reer ruum ahaa qoyaan faranjiga ahaa maymuuna la odhan jiray ayaa loo yeedhay ninkii baa la raacay meel howdaa la tegey geedaa laga soo guray markaa lagu tilmaamay inuu ahaa dhuur geed dhuur ah wadaadana may wuxuu ahaa timir bay sheegaan saydina waa noqotay geedaa la soo guray geedihii baa mimbar uu ka sameeyey 3 darajo leh 2 darajo nabigu uu koro iyo midda saddexaad uu ku fadhiisto ama uu ku dul istaaga nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu u baahdo marka midna waa ku fadhiistaa labana nabigu waa soo koraa 3 darajo ahaa saxaabiga marka sheekay wuxuu kaan nabiyullaahi calayhi salaatu wasalaam yaquumu yowma aljumcati ilaa jidcin mansuubin fi lmasjid nabigu markuu khudbaynaya maalinka jumcada ah tiir buu ku tiirsan jiro dhabarkiisa saari jiray fayusnidu dahrahu ilayhi fayakhtubu annaas tiirkaasuu ku tiirsan jiray muslimiintana waa u khudbayn jiray fajaa'ahu ruumiyu waa maymuun baa la odhan jiray aniga khulaasada soo sheegnay markaasuu wuxuu yidhi nabi allow maan kuu sameeyo mimbar aad ku dul fadhiisato ummaddana ay ku aragtood ku khudbayso mimbar buu sameeyey 2 darajo leh oo saddexaad nabigu uu ku fadhiisto maalinkii u horraysay mimbarka nabigu u yimid ee loo keenay ee la soo dhigay oo ku khudbeeyey ayaa waxaa ooyey oo baroortay geedkii horaa nabigu ku tiirsan jiray waagi hore uu ku khudbayn jiray فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حزنا أو حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتج المسجد لخواره فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه وهو يخور فلما التزمه رسول الله سكت ثم قال والذي نفسي بيدي لو لم ألتزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله فدفن تحت المنبر واد مقليسين geedkii nabigu ku khudbayn jiray nabigu maalinka uu ka tagay ee mimbarku uga wareegay ayaa ooyay wuu baroortay sidii ilmo yar uu baroorto kale ayuu u miraaday nabiga arkay wuu soo degay asagoo marka nabigu xabadka galiyay ama gacanta saaray markaasuu dego aamusay ilmo hooyadii ay aamusanayso kale ayuu aamusay nabigu wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay haddaanan hab siin lahayn geedka asaga ee ooyaya ilaa adduunka lagu rogo suurka la rogo ooyi lahaa oo saa u dhawaaqi lahaa xumaanoo ku xun yahay tegidda uu nabigu ka tegay iyo walbaaru hawsha ka walbahaarsan yahay riwaayada axmed waxaa ku yimid falamaa qaama annabiyu cala alminbari xannat alkhashabatu
وأنا في المسجد فسمعت الخشبة وهي تحن حنين الواله geedkii nabigu ku tirsan jiray oo marka sidii hal ilmaheedii dhintay ama laga qaaday sidii oo la haya ayaan arkay xasan al-basri baa tacliiqin jiray wuxuu yiri ya ibadallah al-khashabatu tahinnu ila rasulillah shawqan limakanihi min Allah azza wa jalla fa antum ahaq an tashtaqu ila liqa'i xasan al-basri saasu oran jiray geedkii jamaadka ah inagu ku khudbayn jiray ayaa sida nabiga ugu hiloobaya oo nabiga jacaylkiisa sida ugu ooyay idinka ka mudan nabiga inaad u hilowdaan oo la kulankiisa iyo sunnadiisa aad ilaalisaan xadiidka Salim ibn Sa'd as-Sa'idi waxa ku yimid fakharat al-khashabatu khuwar ath-thawr hatta fazi'a an-nas wa aktharu fi ad-du'a wal-buka faqala sallallahu alayhi wasallam subhanallah ala tarawna hadhihi al-khashaba انزعوها او انزعوها واجعلوها تحت المنبر فنزعوها فدفنوها تحت المنبر ألا تعجبون لهذه الخشبة فرق الناس وكثر بكاءهم مسلمين مكا أركين جيدك أويا هي ومركا رواقي وبروراني يا مسلمين قدرين والله برورتين نبي أمسي جيدك أسقاها رواية جابر في صحيح البخاري ومسلم حكيمت فجعل تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى أو يسكت حتى استقرت بكت على ما كانت تسمع من الذكر سيدي الماء أويا هيو برورتو برحي لو أموسيو أيا جيتكي لو أموسيي وأجد ما نبي وحوف فري عليه الصلاة والسلام جيتكي لغفو شي ماشي وكنت كولي أو لغو حبالو منبر كهوستيس نبي منبر كيس انتي الهوستيس اللي قوضو هل كان إلا قليو سي مركا نبي ودوشي سوغو خطبي اللي أصو مركا وحكا برورانيي النبي وكتغي هدي لكن منبر كهوستيس اللي قليو لابد مصلحة والله جمعنا جيت كان حقي سيبا لسيو ولا أموسيي مسلمين تنا منبر كدوش صلى الله عليه وسلم يا نبي أركيان عدك زين سيو عم بيوم مقليا واجد ذنبي المسجد كنا محمد الدميي إلا بلاري خلافة سيدنا عثمان منبر كماشي والله قاضي مساعد كنا والله بلاري صومها جيت كي أصاقه وحاقات أبي بن كعب تيركي أبي بن كعب بلتجي أصاقه هينشري إلى أباباي فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فلم يزل عنده حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاتا إلى باباي وأبور عني سداسا جيت كيلو إلى اللي وجيت بركيزا والنبي محمد أوي إذن وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام جيده يدرت بالنبي حق سجران ريه فقاشو النبي وكفقادينا كحمانا يكوي كبرورنا إذن كامرك كم النبي عليه الصلاة والسلام inaad xurmaysaan oo sunnadiisa iyo diinkiisa raacdaan oo sida geedo iyo dhirta u jecel kadara u jeclaataan maxaa yeelay inuu mukallafiin baa tiin aqli baa ilaahay idin siiyay si goona nabiga la idinku soo diray geed iyo dhir nabiga looma soo dirin laakiin xaqiisa bay garanayaan iyo makaanadiisa darajadiisa marka waxa la yaabaa in dad islaam sheeganaya oo muslimiinta ku maxaabsanaya nabiga sunnadiisa dariiqiisa diinkiisa lagu kari la'yahay bal ay quursanayaan oo daraabayaan oo liidayaan oo waxaan ku sheegayaan bar ay la dagaalamayaan diinkiisa ay col leeyihiin xaqana nabiga ay ku maxaabsanayaan oo leeyihiin rasuulka rasuul noo ah qisada 48aad ee kamida mucjizaadka nabiga calayhi salaam waxa kamida wixii ku yimid xadiidka Uthman ibn al-Aas al-Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu saxaabigaas asaga inoo sheekeeyay wuxuu leeyahay annagoo reer Thaqiif ah oo reer Taa'if ah oo 7 ama 6 ah ayaa nabiga u nimid oo wafdaan ugu nimid Madiina ugu nimid muddan la joognay ama Makan ugu nimid oo maalmihii fatxu Makka nabiga u yimaadeen marka nabiga muddo la joognay oo diintii waxaan ka qaadan karaa aan ka qaadano nabiga wax noo sheego nala dardaarmay ayaan dabcan noqonon ku laaban reer Taa'if reer Thaqiif aan ku laaban nabigu wuxuu yiri marka ninkaas Uthman ibn al-Aas ah ayaan amiir idin ka dhigay asagana ugu yara duqeydii meesha socday iyo wafdiga reer Thaqiif ninka ugu daayaraabu ahaa 20 marka inuusan gaarin baa la sheegay wuxuu yiri wa ana asgharu 6 alladina wafidu ala rasuulillah lixdan nin nabiga wafdaan ugu yimid reer Thaqiif matalayay ee qoyskaas u ahaa nabadoonada ayaan ugu yara nabigu wuxuu amiir iga dhigay wadaalika anni qara'tu suurat al-baqara xifdiyay وأنك سمر أنا سنويد وكان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا وأنك سمر
إذن سورة البقرة ده أحكام القرآن كلهم بلغوا لما يستري أو سورة ده أحكام بدن قرن إنسان أيام دول شكا قبتيب كذب أنا أمير لا يردقي وأن تقني ضائف بان كل أبتي مدان مقنع خير كده النابان أميرون نقضي أنا إمام وصلاة تجيه عيدها تجيه وحلبة جمعة وضع واجد ذنبه صلاة دي بان رقاتين وايبو صلاة دي أن تكني وسواس قرآن كي ويقف كنيا مركان فاتا آخريو سورة كو حكتو وابي يقويريسا بقر الآن هي وان لا وان صون نقضيبو قايد بسوقات وصو صفري نبي مدينة أقويمي نبي إيقا ورقبين ومبانسان مساعدك إيميد صلاة لتو كذي يمركو نبي بحبان قرب قليبو مركاسو نبي يقول نحيرو واكوما عثمان بقى ومحاكو كيري أو هوشان كو دري شقدي سوني مسؤولا ماذا هايد حادث كقصو دقاق ذي أصدقائي نقول شكي وحوري فقلت يا رسول الله إن القرآن ينفلت مني قرآن كيف يقب حسني سوى الباطان يلورعاو كتك أمات لن أخريه ودقاقها هي فوضع يده على صدري نبي قباق عن سبرة كيسنيت هل كحبتك أم الله بتيغا صاري وقال يا شيطان اخرج من صدر عثمان فما نسيت بعده شيئا أريد حفظه بور نبي قال حبتك قعنت إيقا صاري وحوري شيطانو لابتي حبتك عثمان كبح أمر بالسيني وحوري مالك وحي كدن بي شيء عن ضمعو إن حفظيهم كو قيبون قبطو ولقي ما فكن ومعجزة النبي عليه الصلاة والسلام رواية كلي ذاك شيطان يقال له خنزب أما خنزب واحد هذا نوحول الشيطان كصادق ولد قال القرآن كأمد المنسية إلا بها فريستا وسواس كأنه هستنا الحفظ جعل هستي بطرانية بخت وحفظين قبيها وكوفضين لكن قرآن ككوما قال حفظك السنة شيطان خزب ليدا ويؤذن مني سودو والنبي يقول سودو صوف رسالة داوي ثم وضع يده على صدري فوجدت بردها بين كتفي gacanta wadnaga halka iga saaray qabowgeedii waxaan ka dareemay dhabarkayga gacan halka laga saaray adigu hadaysan nuurka la soconin xabadkun baad ka qaboway mooyeen dhabarka ka dareemay maysid laakiin gacadu waa gacan barakeysan mucjiza la socoto فما سمعت بعد ذلك شيئا الا حفظت روايه كلي مالك وحي كدمي وحان مقلب وان قبطه وحي قفك اسك داي وحان مقلب وان قبطه وهذا من بركاته عليه الصلاة والسلام وأنا معجزات النبي وويناء الصحابة يكور قبين رواية لو حكود دريا إنه النبي يريد أفكار كلاقات أنتو يريد فريسو هرت ذي فريسو أو لغها أنفرها لغها كفريستي عربها أي النبي وحبت كي قراعي اخرج يا شيطان يا عدو الله ورواية لو رنيس اخرج يا عدو الله من صدر عثمان كذبنا النبي والله بقر صدح جرب وأفك إنتان كلاقات يقول طفي عنو تسبر كذنب يقول في مالك وحي كدن بيك وحي عن مقلب وان قبطه شيطان ضمبو يدبانا ما أرق بوري ثم قال الحق بعملك ورشق ذات مرضى منها صنقون فلعمري ما أحسبه خالطني بعد بوري وحي مالك كدن بي شيطان ضمبي ووسواس ضمبي وان يستين وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام يا بركة الدعاء يسوي الصحابة يسكم مقطي كتوسي النبي صوبانه إنه يهي أحد بركيسان أو النبي حقه وحاكم إذا معجزاتك هوشي قبستي أم ورقة بنت النوفل رضي الله تعالى عنها قبر قيمة بدن بيهي أو قرآن كدوشة كقبطي حافظت لكتاب الله بيهي أيضا إنه كان يسوي حي تجري نبي مالك ودولي يسعى بدر أيان كهر إيمدن لكل مي وحان نبي الله وحان مقلها يا إنا تصعد بدر الدولي سال إذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني الشهادة حينما الله ودول إنسان إذا عين الراعي إلا الدول سلام دقال لنتا أيد وسير رقو دقال لنتا إذا بيتران الراعي وحكا لدان قبان وايو راو عن داوين بيها يدين صور دامين راشي كان كاين وانا هول علوس قيب جهادك كم بدوين وحكا والله قيابا إلهي إنه الشهادة إسي أون شهيدة با مركا عيدا كايقر ريبني يفصح النبي وحكولي مايا قري في بيتك أو مقري في بيتك قولي قاعد اسكتشو هذا غاقن وغزو أنك أبحين الطلب إيه
أدو إسكجوك قري أو قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة في بيتك. ويوم بدر نبي وحول يقول هذا إسكجوك أنا قاعد إسكف فلان هو يربى نصعنا وقاعدة كدمنا بدر بيسوق بدر شوات قرنا يسار أدو يقول هذا إسكجوك بالليل أدو يقول هذا الجوك يا شهيد دونتا ما بهنا دوشو قول هذا كل شهيد دونتا